madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Selici iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo xubno ka mid ah wasiirada Somaliland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loo qabtay dufcadii labaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Golis ee Berbera. xafladan qalin jabinta oo lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Berbera waxayna ardaydani ka qalin jabisay kuliyadaha MSIT-ga iyo nursing-ka, tiradooduna ay dhan tahay 58 arday. waxaa kaloo munaasabadan heer gobol ahaan uga soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Khadar Cali Cilmi iyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin. waxaa dhinaca jaamacadda Golisna ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Golis ee Somaliland Professor Siciid Axmed Yaasin iyo gudoomiyaha jaamacadda Golis ee Berbera Engineer Naasir Xaaji Cali Shire iyo marti sharaf kale. waxaa ugu horeyntiiba halkaasi kula hadlay ardayda qalin jabinaysay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ardaydan maanta ka qalin jabisay jaamacadda Golis ee Berbera anficina doonaan gobolkooda iyo dalkoodaba. waxaa kaloo ardaydan qalin jabintooda ugu hambaliyay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka, wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Golis iyo gudoomiyaha jaamacadda Golis ee Somaliland iyo gudoomiyaha jaamacadda Golis ee Berbera. Golis horta waxaan ku soconaa inaynu noqono jaamacadda ugu wanaagsan geeska Afrika 2015 si aynu haddaba u gaadhno taa. waxaan bachelorkii waa la wada qaatay, digriigii u horreeyey Berberi way qaadatay, Burco way qaadatay, Hargeysa way qaadatay. qalin jabintii 9aad baynu maraynaa maanta. inaan dhaafno weeye halkii inaan waddanka dhisno capacity-giisa wax ku daysan mudan. waxa role model u ahaa magaaladan Berbera la yiraahdo dadka ka xamaasha dekada, laakiin maanta waxaan abuurnay jawi ka duwan oo maanta mafarshada iyo meelaha lagu qaylo ee magaalada Berbera waxa laga sheekaystaa jaamacadda Golis iyo ardayda qalin jabinaysa ay isdaba socoto oo u noqotay wax ku daysan mudan iyo wax barasho taagan. waxa kale oo aan runtii abuurnay library weyn oo runtii aqoon kutub cilmi ay taalo oo maanta magaalada Berbera noqotay madal wax lagu akhristo ay isugu yimaadaan dadka aqoon-yahanka iyo waliba dadka xataa dhigta dugsiyada sare ee gobolka gaar ahaan magaalada Berbera oo noqotay meel ay yeelaan kutub cilmi ah oo cilmi laga daalacdo oo u furan cid walba. waxaan kala abuurnay barnaamijyo wacyigelin ah, tartamo fara badan iyo barnaamijyo aqoonka oo runtii aan ku kabnay dugsiyada sare ee magaaladan Berbera. ugu dambeyntii waxaa xafladaasi soo afmeeray dhambaal hambalyahana u diray ardayda qalin jabinaysay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland waxayna halkaasi ku gudoonsiiyeen ardaydii ugu sareysay shahaadooyinkii waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. munaasabadda xafladda awgeed aan hambalyada koowaad siinayaa 8 aqoon-yahan maanta loo dabaaldegayo tacliintoodii inay first degree ka qaateen maanta jaamacadda Golis. aad iyo aad waxaan leeyahay hambalyo. waxaa kaloo aan hambalyada siinayaa waalidiintii ku soo tabaaday ilaa maanta elementary ilaa maanta marxalad u tagay ku soo dadaalay ilaahay inuu suuro geliyay inay halka soo gaaraan. iyagana waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay jasaakumullahu khayr. ilaahay beertii aad beerateen ilaahay midba dhashay ka dhigaan leeyahay. way ardayda halka fadhida waa tacabkiin iyo soo saarteen. waxaan kaloo sidoo kale fadhiya gudoomiyaha guud ama madaxweynaha guud ee jaamacadda Golis oo Professor Siciid ki abuuray fikradda jaamacadda Golis. waxaan leenahay isna hambalyeynaa munaasabadda oo ku hambalyeynaa jaamacaddii inay noqotay jaamacad weyn oo waddanka dhan gaadhayna oo qalin jabintii 9aad ay maanta marayaan isna waa ku hambalyeynaa. jaamacadda Golis ayaa muddooyinkii u dambeeyay ay ka soo ifbaxaysay dardargelin lagu sameeyay guud ahaanba kuliyadaha jaamacadda lana jaan qaaday jaamacadaha ugu horumarisan ee dalka. Khalid Xasan Nuur, telefishinka caalamiga ee Royal TV, Berbera.